warka doonti waxaa ka mas'uul ah qofkan yaa waaniyo kaway وداو oo sheekh way isdhisay tuntu xaysiinoya maxkamad oo furan tahay gabadhan still ma qaba yes san hawa ana ku sheegay yaa taadi batuulaha igu soo saqajaan aniga power ba meeshan ku jooga waligaa is qallaji ana waxa ku jooga raganimadeed who are you xalaal baa ibnu xaaraan mihi waa runteed waa gabar laandheero marwe ah alla qaba iisana sikayo qaniis inaad tahay waxa cadaynaysa gabadhaadi hore TikTok dhex joogta cadaynaysa aniga ma cadaynayo asxaabi hal isdejiyo sheekh labadan qof waa laba qof aan kala dhicin oo isku mid ah oo alu khayr ah yaa u khaldin excuse me yaa lagu khaldin sheekh waxa walba la socota adi asoo google gareysa oo maleena وين دالسان وحو قراعي gabar le waa la qabaa oo ninka iyada qabay ka duubayo kiliibyo caynkan oo kala akhwaan waa khaldan tahay maaliyow futadaada xaar kale ninku ma rabee sanka iyo labada dhigood diyaar haday ku tahay imow dhilaa ku dhashay abaa ninkan hooyadiis kor uga bax uga baxay kor maxaa faariga batuula kay soo galiyay aniga waxaan garan lahayn waxa idinka isku haysatiin anaa ku waramaayo naag jirkeeda ka ganacsanayso intay meel soo fariisato wax idin sheegayso adduunkaas ku nool naagay والله الذي لا إله غيره قبلهن الصوماليات قبل الشرف لوي sheekh taas anaa kuugu raxsan been ha sheegin adiga gabadha kula dhalatay uma rabtid xumaan قتان موريانا باتدري قد ماي sheekh fariis ka bax gabar waasha oo la qabo ma ogolaan lahayn TikTok ay ka neegso afka kala bax ninkan jarmalna luqa hadaad soo dhigtay waa soo dhiga aboo ku baryaa tagin iska dhaaf war aniga nin loo hanjabay maahay maaneejaradeyda hadda kaliya ku taataabata looyarkay daa gacanta u saaro hawsha booto loo yaraan haystaaye intaan ka dhacayay huda baa warkaa uu soo gaaray dad badan waxaa jira oo ka saaciideysay ciwaanadooda laga xirxiray dad badanna arrin bood gareysay aniga afariga isku soo galin qof ma ku saqajaan ma report gareeyo qof ma raadsado arrintaas dad badan ku amaanaya arkay oo samiixa khaleel ay kamid tahay sheekh ana waxa u maleynaa qaladka ninkan inuu yahay gabdho badan aa jiro gabadhan wuxuu daba dhigtay waa qalad walaasha hadday ahaleed kana tusaan lahaa kan ana hadday walaasha TikTok jir leed maxaa sameyn lahayd hadday xitaa ku jirto mid qabiilkayga ah intaan u tagaan lugaa qabsan lahay sida hindida waxaan dhihi lahaa I will live for you my family please don't shake your eyes while you are you know wife please أنا لكدا يا أفكان جنيو أنا فاهمين sheekh aniga hataa luqadda ma fahmin laakiin waxba ka welwelin ana inta ku joogo qof waxaan hayaa luqadda jiniga fasirayo socdaalo ninkan wuxuu na office please بالله الرحمن waxaa idin sheegaa noo kalooda walbarka doontiin aniga mas'uul ma kihi السلام عليكم وليغي ما سو فريسن سوشيال ميديا وايكو maan maxaa ku keenay marka hooyadayo hadlaysa ayaa arkay maanta hooyadaad maxaa horaantii dhagool ma jirta fi maxkamadda mar hore idin sheegani kaftan ma jirto meesha meel loo kaftan ma u maleysaaday caruur ma tahay maxkamaddan sharafteeda ma dhooreysaa maxaa laha haaba kuulu kay isdaji biskudu adigana waa taqaanaa qof walba oo maxkamaddan ka soo qayb galo xuquuqda uu leeyahay tahay إن استفاعه وحجرو صحدا أو كانوا okay maxkamaddu inoo furan tahay ninkan ajahanibka anuu yaqabay dhowr iyo 10 sano هدوكو قبي طلقتي كان nin ajahaniba oo gaala weeyaan لعنة الله عليك maxay tiri قال horta ninka qabiilkiisa yaa waaye فرانسيس واي aad ogeed ninkan inuusan muslim ahayn maxaad u soo muslimo weyse dhowr sano diintii soo gal waa ku idhi uuna diiday mar walba wiiga jejesanay hadduu kaa jeesto maxaa dhinacaas lama kasoo martid oo dhinacaas soo jeesis arrintaada waxa reaction ka bixin kara culimo shiino saas haday tahay culimo waa haynaa sheekh نعم arrintan dhegeyso iweydiye maxamed wuxuu igu yiri ninkaasi muu kugu qabaa diin muslim mayba kuul وريا الله يقان sheekh way kafta muusa hooyadeedan si fiican u aqaanaa maanta kaliya maysan hadalnay horaantii hadda way hadli jirta maamada وريا الله يقان marka xambiskudu adigana gabadha gacanta qabsatay sheekha la aaday oo lagu nikaaxmiya تغني شيقي يوسف ونغو مهريي وبالله التوفيق وروح أدونك داعية وركور ربا حلالية بان رجل ilaa ninka waraaqadu keenay taas waa cadeynaysa inuu horaantii muslim aan jiray waraaqadahaasi waxay ahayn garanay hee ninka muslim waayaa la yiri مسلم هاي مسلم وكوكور سدي هبل هاي محي تاري اتصو اتابسي على الرواية aad horta maxay kuugu dooratay mid waa qof wanaagsan mad buskud wax ka fuqaysa shiino ka daa baa familygaaga maxay dhaheen waxa maraabi ma rabno abtigay u diriray tay u dhahay ma garanaysaa anaa kuu sheegaya because adiga laajada waa adag tahay anaga laajadeena jalac waaye isma fahmayno maaha mana garanayo waxay yihiin inay inagu soo samaysateen artay allahu yaclam ani gabadhan waa ku wareeray waxaay ma garanayo xarmigaa jiri karto maxaa waaye sixir wax isirxayna ma jirto waa iska caddahay qofka hagaagsan baa nahay ma u eegayna la isirxay haa way kaa muuqataa in lagu sixri
وانا ني عدية هذا الكي مرضن بنا مرة هذا الأمغلو أباي إزدجي أباي بسكوت أمين مع بسكوت وجبنا نقبصه ما أنت اللي قبل الله بعده قفتن بالصوت أباي قف أدرجع تهي أنت هذا أنا مجالي كرو أنا سانم كوكو ضعفي ذيك أنا شيخ مدة لصوص أنا حرير كانوا أما ينفع جبنا أما واحد كلام ولا يسا anyways أنا شيخ حرير دير أنا قد حيو مدة لصوص عني مركب حنا لا يدحي واسكو كي دعينا يا اسك الا كوجو هذه الشيخة لو كلودا waxaan barkadooda waxa ka masuula tan jabka joogta dhag haraadheer deewaytaas ayaan tafsha yaa kale kuwii qaawan balbalaarka gabadha cad toos qabo shamuula iyo shamuul tayno heetas anaga gaaya maaye maslaxo maxkamadu inoo furan tahay maslaxay Mrs. Wala isdagaal daawasho u imaan oo maxay isku dagaaleen habartu ku dhashay shawaasi atoosha caynaysan ayaa wiilka kale xaway dhihi kartaa oh okay I think sheekh way masiirsan tahay haweenku ma qariyaan masiirkooda laakiin ku waa qariyaa waa habar iyo gabadheeda wada ilooyin ah afka hooyadii ku aysa dhilooy aso dhiiga ku raalgelinaya ku dhahay miswaal soo wicus taleefanka ku dami naaya biri laba sac garan koonis miskanken wallahi warka waa cadiya miswaal adigina goorma bixirta dagaalka dagaalka 7 sac doornimo 8 sac doornimo subaxdii 2 sac lagu dhahay alisee bal misabe haddaan xiligaas soo kici karin iska seexay marka war ani ma seexanoy excuse me dagaal culus baan qaadaynaa wallaahi suma wallaahi meel aan taaganahay hadday soo istaagtay ciridkaa kaga istaagaya gabadh dareeraata waa is ogtahay mo anoo walaasheeda ilmaheyga maxay ku soo cayn gabadhaan habar gidirka ayayna walaalaha kugu dirin habar gidir ha wasaan hadday rawaane balbalaarka aniga al xisaaba noo furan sharciga ku kala bixi doona sharciga waa joogtaa waxa qabta soo jeedi maswal ee balbalaarka in xarunteeda shaqada ay ugu soo weerareen ninka aniga hoostan aan gashtay buusadan balbalaarka aanima ugu fadhiisatay balbalaarka ganfuurkeeda aan arkay waa iska ogolaana maslaxo wajigeeda wax ku yaadaaltay ma fi naya maslaxa abaayo qof walba uu ku raasinayaa cunugan catoosh maskiin waayo gota kuridina ma joogtay maslaxa qashinay karabta xaaskeyga adiga maaba afka kala qaadaysid kuwii qaawanay xumaayay afka ureyso ma adoo catoosh ka soo akacdid ma adiba hadlaysid catoosh maxaa ka khaldan kuwii qaawan ma jartaan miya wallahi bila ma aqaani kuwii qaawan qabiilkeeda raadinta qabiilkeeda ku sheegay dhigeyso ilaahay saadani jareeriga ma dhigin mugtay jareer noocaga waxba kama sheegi karo sheekh anigu jareer walaalkay weeye jareer waa nin sada ah waa nin mareexaana xurmaan u hayaa xilligii siyaad barana xurmaan u hayaa haddana xurmaan u hayaa waa gabar adab daran malqaaban ma aragteen wallahi billahi idaad wax cuni ma joogi karto oo maxaa ka khaldan waxa waa shuuqaya buufin la buufiyo ma arkin oo baq waan arkay maro noqona maray noqona idina lesbian mi horta mise nin waay maxay tahay horta maxay tahay allah ana arintan waan ku wareeray tii ugu dambaysa ku sheegay dhigeyso waxba hay sheegin adiga dhigeyso adig sidaa banaan sheekhan ku meerin walaayadaadana ana ii diiwinaysa haddaan sheekh ku qanacsanan halkaan fadhiiso haddii kalena albaabka bax aniga sheekha meerka aan ka wada hadlaynay arabka yana gashta fiirmida ku sheegay ninkaan dhanka bax sheekha marabta albaabka bax ciao waa baxay niga billaahi raxiim sheega kala wada